وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك شيخ عالمها وقتgiisa inta badanna wuxuu ku qaadan jiray aqrinta quraanka xilliyada quraanku uu akhrinayo ama uu dujinayo salaadana khushuuc dartiisa ayuu la ilmeen jiray dhammaantiinba muuqaalka sii sheergareeya isla markaana u duceyno in naxariistii janno ilaahay uu siiyo sheekha kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawadaan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga ay idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo subxaan allah subxaanahu wa ta'ala aan kaga baryeena umuuraha leedahay ilaahay inuu sahla ilaahay subxaanahu wa ta'ala awlaadda uu barakaya inta awlaadoonkana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta guurdoonkana guur wanaagsan mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabta la gareeyana waxa rabbi subxaanahu wa ta'ala aan kaga baryeena in maal adduunyo ay filan inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu siiya dambigood iyo dambiga waalidkoodana ee bow dhaafa rabbi subxaanahu wa ta'ala uu ku azuma jannatul firdaws al-a'la xaasidka waxa leenahay wa min sharri xaasidin idha hasad al-xaasid la yaflah biidni illahi al-kariim waxa ku dambeeyo hoog iyo khasaaro oo rabbi subxaanahu wa ta'ala aan kaga baryeena dhamaanteena waxa rabbi subxaanahu wa ta'ala aan ka mangelina isha xaasidiinta oo rabbi subxaanahu wa ta'ala aan weydiisanaynaa inuu hareer mariyo dhamaanteen ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inta xanuunsan inuu ilaahay xanuunka uu ka dulqaado caafimaadna ugu bedelo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana rabbi subxaanahu wa ta'ala gargaarkiisa iyo nasrigiisa siiyo sheekh nuuraani sheekh muhammad sadiiq oo ahaa qaari weyn oo caalamka dhan laga yaqaan isla markaana ka soo jeeda qaaradda Afrika gaar ahaan dalka Suudaan ayaa goor dhaweyd u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka Suudaan allahu naxariistay qaariga weyn sheekh nuuraani sheekh muhammad as-sadiiq ayaa wuxuu ahaa qaari si weyn bulshada caalamka caalamul islaam lagu yaqaano isla markaana si wanaagsan ay dadka muslimiinta u dhageysan jireen aqrinta quraanka kariimka xilliyada uu akhrinayo si weyn dadka ay ugu raaxeystaan akhrinta quraanka iyo qaabka quraanka uu akhrinayo allah u naxariistay sheekh nuuraani wuxuu culimo badan uu kaga dugnaa in xilliyada uu dujinayo salaada uu la ooyo salaada iyo waliba isla markaana uu la qashuuco akhrinta quraanka kariimka asoo xilligaas ku akhrinayo sood ama cod aad u macaan qaariga ayaa waqtigiisa inta badan wuxuu ku qaatay akhrinta quraanka kariimka iyo waliba dujinta salaadaha kala duwan xilliyada rabadaanka wuxuu si toos ah u dujiyaa salaadaha taraawiixda iyo waliba salaatul leelka isla markaana waxa dad badan oo muslimiin ah si weyn dhagaha ay ugu raariciyaan akhrinta quraanka iyo qaabka quraanka uu akhrin jiray allah u naxariistay sheekh nuuraani oo goor dhow u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka Suudaan allah u naxariistay marxuumka ayaa wuxuu ahaa shakhsi si weyn lagu yaqaan wadamada muslimiinta waxaan dhamaantay rabbi subxaanahu wa ta'ala aan ka baryeena in naxariista janno ilaahay uu galiyo sheekh nuuraani محمد الصديق وها قارس وين لو يقان إسلام كان أقنتيس القرآن كريم كا ضدك مسلمين تيجعليهن خارجة أي رمضان كي وجودن بيو ودجية مساجد وين وكي على ذلك السودان أيضا إسلام كاسي ضد بون مسلمين أي كنت حنايين أقنتا قرآن كي ولبس لقضاها القرآن وأن هذا قابك وآخرنا يو قرآن كو عد كيسا عد آد معان وحد ما أنت رب سبحانه وتعالى عن وديسنا إن دم بيجي سودا فقارجة شيخ نوراني شيخ محمد الصديق كاسو غورنا ويد غيريودي وحن ربي سبحانه وتعالى دمانتين ان كبرينا ان جنة الفردوس الاعلى وغري شيخ نوراني دمانتين ان دعينا شيخا وحنا شيخا xilliyada quraanku uu akhrinayo uu injiray sida muuqaalkan aan idin soo gudbinayno waa qayb kamida sheekha oo dujinayo salaad isla markaana ku raaxaysanaya akhrinta quraanka kariimka qolkii innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.